السلام عليكم. فقوق dadka jinsiga madow ee uu midabkoodu yahay madow, sankoodu yahay mid ballaadan, leh timo aan jilicsanayn. Waa arin inta badan ka taagan adduun weynaha. Waana mid soo jiri jirtay ilaa xilli hore, inta badanna maantada tan xitaa jirta iyadoo si dahsoon loo wado. Maalin walba dhacdooyinkaas waan maqalnaa. Waana kuwa maalin kasta dhaca sida dad badan dunida joogaba qabsata. Arrinkan waana mid dhab ah oo jirta kuna salaysan xaqiiqda dahsoon ee ku duugan nolosha inagu hareeraysan ee aynu ku noolnahay. الحاج المالك الشباز مالكوم إكس nin madow ah taariikhda muslimiinta ku nool Mareykanka iyo dadka madow kaga jira baal dahab ah. Waxa uu ku dhashay dalka Mareykanka sanadii 1925 xilligaas oo ay dalkaasi ka jireen koox qarsoodi ah lagu aasaasay koonfurta Mareykanka sanadii 1975 aasaasayna nin lagu magacaabi jiray David Duke. kooxdaasi oo u dhisnayd tirtirka iyo la dagaalanka ololihii jamhuuriga ee xuquuq simida madowga iyo caddaanka Ku Klux Klan. Waxay ahaayeen koox aad uga soo horjeeda in qof madow ahi la xuquuq noqdo mid caddaan ah. Malcolm X. I think a lot of people confused by the new Arabic name, El Hajj Malik El Shabazz. I've always had the name on my passport, Malik. sanadii 1931 6 sano kadib dhalashadiisii Malcolm waa uu agoomoobay. meydka aabihii oo madaxu garab yaal baa la helay oo la aaminsan yahay in kalaanku dilkaas ka dambeeyay, waayo jeerar hore ayay u hanjabeen inay khaarijin doonaan. dugsigii sare Malcolm X waxa uu ka galay West Junior High School oo gaar u ahaa dadka madowga ah. noloshu waxyaalaha ay nooga baahan tahay waxaa ka mid ah in aynu noqono runna nooleyaal. waxaad noqon karto dooro. maxaad u qorshayn weyday in aad noqoto necro? buu macallinkii caddaanka ahi ku yidhi mar uu weydiiyey waxa uu rabo in uu noqdo oo uu garyaqaannimo doortay Malcolm. hadalka macallinkaas baa loo aanaynayaa sababtii uu uga tegay Malcolm waxbarashada. mid kale oo dhibaatooyinkii midabta koorka cunsuriyaddu noloshiisa ku waxyeelaysay bay ahayd arrinkaas. kadib ka bixidii dugsiga, Malcolm waxa uu la degay walaashii oo ku noolayd Boston. shaqooyin door ah buu ka qabtay Boston oo ay ka mid ahayd kabacsayntu. kolkii dambena dadka muqaadaraadka ka shaqeeyey buu ka mid noqday oo aakhirkii lagu xidhay laguna xukumay 10 sano oo xarig ah. muddo 6 sano oo uu xabsiga ku jiray kadib, waxaa la sheegaa in isgedi maskaxeed iyo mid ruuxeed ku dhacay Malcolm. sababta oo ahayd akhrinta buugaag door ah oo uu isku dhaafin jiray waqtigii uu maxbuuska ahaa iyo dad muslim ah oo uu kula kulmay xabsiga. sii deyntiisa kadib, waxa uu xidhiidh la sameeyey hogaamiyihii ummadda muslimiinta ee madowga Mareykanka ee loo yaqaanay Alxaaj Maxamed, halkaas oo Malcolm diinta islaamka ku qaatay. urur diimeedka ummadda islaamka ayuu aqoon badan ka kororsaday. ururku waxa uu ahaa mid u jira helidda maamul madax bannaan oo ay helaan dadka madowga ah si ay uga baxaan gumaysiga caddaanka. Malcolm si buuxda ayuu uga go'ay la shaqaynta hogaamiye Alxaaj Maxamed ilaa kolkii dambe 1952 oo uu magacaabay wasiir iyo afhayeenka ummadda muslimka ah.